munaasabadani la isugu soo baxay gudaha degmada Salaxley ee gobolka Maroodijeex ayaa waxa ay ahayd dareen shacabka ku nool degmada Salaxley ay ku muujinayeen qadiyadda go'aansashada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo u mahad celiyay baarlamaanka Ingiriiska kuwaasi oo dhawaan dood ka yeeshay sidii dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland aqoonsi buuxa uu uga heli lahaa beesha caalamka iyo gaar ahaan dalkaas Ingiriiska isu soo baxan ka dhacay gudaha degmada Salaxley oo ay dhammaanba ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ahaa maamulka degmada Salaxley iyagoo halkaasi si wada jir fariin uga diray ilaahay baa mahad iska leh waxaana amaanan oo amaan iska leh cidiina taageerta ee waxaynu u baahannahay sheegna sida Ingiriis Soomaaliland ha noolaato maanta waxaan soo istaagay inaan u mahad celinno baarlamaanka Ingiriiska oo ka dooday qadiyadeena maalintii dhaweyto si fiicanna meel fiicanna way dhigeen run ahaantii shacabka Soomaaliland halka kuma iman bariyo dhiig baa u daatay inaynu maanta adduunka tusno inaynu sidii iyo si ka daranba aynu difaacayno qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aynu taageerayno oo aynu u mahadnaqayno cid kasta oo taageeraysa sida baarlamaanka Ingiriiska oo kale oo ka hadlay arrinta tan waxaanu kale hambalyo u diranayo bogaadin baarlamaanka Ingiriiska oo muujiyay qadiyadda Soomaaliland ka doodaan waxaynu halkaa u taaganay abaarta iyo kulaylka iyo bacadka hooyooyinka iyo carruurta iyo dhalinyarada iyo deegaankaasiba waxay u taagan yihiin kalgacalka iyo muxubbada ay u hayaan dalkooda waxay ku xiran tahay dareenkeena shacabka reer Soomaaliland boqolkiiba boqol waxay muujiyeen inay midnimo ay dawladooda ku garab taagan yihiin oo ay ka go'een Soomaaliya waxaan kula dadaamayaa shacabka reer Soomaaliland iyo reer Salaxleyba wixii midnimo qarana inaan qabiil iyo xisbi iyo macnaha aan la gelin siyaasad ama koonfur ha noqoto ama koonfur ha noqoto cid go'aansashada Soomaaliland maanta laga daba fadhiisanayaa ma jirto dadweynaha degmada Salaxley iyo maamulka degmada oo hogaaminayaaba waxay maanta hambalyo iyo bogaadin ballaaran u dirayaan baarlamaanka Ingiriiska ardu alafi shahiidin ardu li'laa kada kubur ardu ahmad yahwa amsalhum sharidu sharqa wa qarban shamsu sha'ad wa narat hakron hambalyeena dawladda Ingiriiska iyo dhammaan dunida cid kasta oo u dhaqdhaqaaqaysa aqoonsi raadinta Soomaaliland waxaanu iyagana u mahadnaqaynaa dhammaan madaxda qaranka Soomaaliland اعترافنا waa laga hadlay dadkii oo dhan baa ka hadlay inay tahay اعتراafkeena waa cadaan اعترافka Soomaaliland waa u soo halgantay waa u soo samirtay waqtigeeda la gaaray. At the last I would like to send a special message to the British government using the exact words of Mr. Williamson. Our nation have a long historic ties and now it is the time to make historic together. Thank you very much. nin kasta calooshu ka bugto waxaan leeyahay madaxweynaha Soomaaliya ku quuso quraanjoy qarankan Jamhuuriyadda Soomaaliland waa qaran runtii marxalado badan soo maray ciyaar kuma iman Soomaaliland maanta haysanaa marxalado kala duwan baa soo maray mujaahidiin baa ku dhintay dad baa ku nafwaayay tacab badan baa soo geliyay ma ogolaanayno cid kasta oo dhibaato ku geysanaysa ama yaraysanaysa qadiyadda madaxbannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland aad u mahadsantihiin shacabweynaha reer Salaxley runtii way muuqataa dareenka iyo wadaniyadda aad u haysaan runtii qarankan iyo inaad tihiin shacbiga Soomaaliland kuwa markay xagga qadiyadda iyo jiritaanka Soomaaliland noqoto ugu runtii ay ku weyn tahay aad iyo aad runtii mahadsantihiin